waa soo dhowdahay haddii doorasho la gelayana dad badan oo waxa iska jiro nin walba wuxuu raba sheegay maanta waxa loo baahan yahay oo wax dooranayo waa xildhibaanada koonfur galbeed ma aha xildhibaanada federaalka oo kulligeyga waa mahadsan yihiin shaqadoodii waa soo qabteen madaxweyne doorteen gudoomiye baarlamaan bay doorteen gudoomiye kale doorteen ku-xigeenay doorteen wixii shaqadooda waajibaadkoodii waa haystaan crisis-kii iyo buuqii ka jiray federaalka oo xamar yaallay waxaan ka codsanahay inaysan noo soo rarin oo inta aysan noo keenin ma hayn karna annaga culays iyo khilaaf iyo maxay ahayday dhibaato waa mahadsan yihiin meediya iyo idaacado waxay yaallaan xamar waxay xildhibaan u yihiin federaalka ha ka hadleen halkaas xaquuqdii nooga maqnayd dawladda dhexe ha noo raadiyeen ha noo warsadeen waxaan u baahnayn ha noo weydiiyeen laakiin ayagii oo dawladda dhexe ka tirsan oo dawladda xubin ka mid ah inay maanta intay idaacad fariistaan yiraahdaan dawlad ma arki karno dawladda nagu soo duushay qabiil baa nagu soo duulay masiiba dhacayso 91kii loo baxaya waa idinku kaligiin masiiba ma rabno ilaahay baan ka magan galnay adinkan iimaanka Allah in ku sugo dalkiina iyo dadkiina u shaqeeya baarlamaankii shaqa u taalo waxa laga hadlayaa boqol ajenda taalo horumarka dalka ka qayb qaata oo horumarkaas iyo shaqada la idin xisaabtay وركوا فوق البيدين حل سارتين هذا نكي مشرحة وسيدايد وقال حلبان هو مشرح نقدنا هاي ماذا هلا دورته هالشقي نكي ننتا غيره وفرنتها ولا تغيير كرا لكن يعني لو تغيير قفك بني ادم كتغيير ما نقونيس دورشة دعيس ان هبيري مال الى عاد لغا قيلي واللي يراها وحبا دباي iyo waxba dhibay bini aadanka wax fiican baa la sheegaa maana wax lama sheego waxaan ilaahay ka magan galnay mar walba ayaan noo sheegin oo loogu soo celcelin annaga waxaan u baahanahay waa dawladnimo dalkan nabadiisa xuduudihiisa amnigiisa waxa mas'uul ka ah guud ahaan dawladda federaalka Soomaaliya ciidamada inta joogo oo baydhabo joogo ciidanka militariga biliiska nabad sugidda waa ciidanka federaalka ciidan oo dhan waxa mas'uul ka ah dawladda federaalka ammaanka dalkan ama amniga qaranka la yiraahaa waxa mas'uul ka ah dawladda federaalka annaga waxaan ka mid nahay dawladda federaalka hadii ciidankii inta joogay hay'adaha amniga inta maamul iyo dawlad baa ka dhisan systemkii jiray ay codsadeen maadaama doorasho lagu jiro si ammaanka loo sugo ayaga codsigooda uu ku yimid wasaaradooda amniga iyo hay'adaha amniga ay codsadeen ciidankii joogay in ciidamo kale lagu xoojiyo ma qaran baa la dumiyay ma dal baa la dumiyay ciidanka intuu ka yimid ciidamo amisom joogan oo dhowr nooc amisom police joogo amisom kala joogto waxa kale oo joogo ciidanka militariga oo dawladda federaalka iska lahayd oo waxa joogo ciidanka police-ka waxa joogo ciidanka nabad sugidda amni baa la sugayaa amnigi baa la qabanayaa hadii la diiday macnaheedu waxa la rabo waa amni xumo in la abuuro annaga amni xumo ma rabno ilaahay baan ka magan galnay doorasho xor iyo xalaal aan rabnaa doorasho xor iyo xalaal ah yaan rabnaa shacabka reer koonfur galbeed waxaan ugu baaqayaa yaan la idin wareerinin yaan la injah wareerin yaan la idin uminin waxa u baahan tihiin dawladnimo maanta waxa wax dooranayo waa baarlamaanka koonfur galbeed baritan waxa wax dooran doona shacab waqtigeeda markii la gaaro ilaahay na gaarsiiyo oo seejal la dhigo nin walba meeshiisu ku dooran doona laakiin shacabka reer koonfur galbeed wixii aad soo marteen dib u xasuusta waxa idin deeqo waa dawladnimo maanta waxa la joogo waa magaalada Baydhabo waxaan u baahanahay inta baawur ka raacno aan ku tagno xamar inta baawur ka raacno aan ku tagno waajib uma baahnina annaga la isku kaana mashquuliyo la isku kaana imtixaamo waxaan jirin looga sheekeeyo ninkii waxaayo oo dalkan iyo dadkan wax taray wax ku soo ziyaadiyo oo wax fiican oo wax tar ah ku soo ziyaadiyo yuusan ugu soo siyaadinin wax negative 24 saac yaan la sheegin masiibo aan weliga naga arkin iyo waxaan dalkan bayaan mudanayaa